She would like to make the government of our country just like the country from where she came. Somalia, no government, no safety, no police, no nothing, just anarchy. waxay rabtaa inaan noqono sidii dalkeeda Soomaaliya oo kale, dal aan lahayn dawlad, nidaam iyo kala dambeyn. Oraayadan jees ka muuqda ayuu yiri Donald Trump, madaxweynihii Mareykanka, xilli uu ka hadlayay Ilhaan Cumar. Hadalkan marka laga yimaado inuu ahaa hoos u dhigid iyo jeesid, haddana waxaa hubaal ah in haddii aynu nahay dhalinyaro aynu usii joogin dawlad Soomaaliya oo awood badan. حرب ومجاعة، مرض وفاقة، وأمراء حرب. هكذا هي صورة هذا البلد شرقي إفريقيا، الصومال، في أذهان الكثيرين. dhanka kale, madaxweynaha Trump wuxuu ka mid yahay madaxweynayaashii caanka ku ahaa kibir weynida iyo aflagaadada joogtada ah. Waxaa laga yaabaa inuu yahay ganacsade guuleystay, laakiin wuxuu u muuqdaa inuu yahay diblomaasi aad u fashilmay. Fashilkiisuna wuxuu sii kordhay markuu u go'aansaday inuu si xun ula macaamilo buugga loo yaqaano The Room, kaasoo wax kasta ku dhaceen The White House, oo laga filayo dhowaan daabaco The Simon oo uu qoray Johan Bolton. Johan Bolton waa safiirka hore ee Mareykanka, horeyna u ahaan jiray la taliyihii amniga qaranka ee waddanka. Wuxuu u muuqdaa inuu go'aansaday inuu shaaca ka qaado sir badan oo dowladda Mareykanka iyo inuu kashifo madaxweynayaal kale oo badan sirtooda ay ku hayaan Mareykanka ama qaab kale oo uu ku jiro madaxweyne Trump laftiisa. Maanta waxaan ka hadli doonaa dacwadda uu madaxweyne Trump u gudbiyay qoraaga, isagoo iftiiminaya faahfaahinta faylka kiiska iyo inaan ka wada hadalno faahfaahinta buugga loo yaqaano qolka uu wax walba ka dhacay, kaasoo cabsi geliyay dowladda Mareykanka ilaa xad. Trump ayaa cadaadis badan wajahaya xilli ay doorashada madaxweynaha Mareykanka dhacayso bisha November. Inta badan eedeymaha buugga ku jira waxay ku saabsan yihiin wadahadallo khaas ah oo madaxweynaha sameeyay, suurtagalna ma ahan in cadeymo loo keeno. Maamulka Trump ayaa dagaal uga jira in la mamnuuco buugga, wuxuuna madaxweynaha sheegay in lagu aruuriyay qoraallo ku dhisan sheekooyin iyo been abuur la sameynayo. Eedeymaha buugga ku jira waxaa ka mid ah madaxweyne Trump wuxuu caawinaad ka raadsaday madaxweynaha Shiinaha si uu ugu guuleysto codbixinta doorashada 2020. Bishii January, Aqalka Cad ayaa sheegay in buugga lagu faafinayo sir culus, taasoo ay tahay in meesha laga saaro, balse Bolton ayaa diiday arrinkaasi. Bolton ayaa beeniyay in buuggiisa uu faafinayo sir qaran. Madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in bisha November oo loolan adag kala kulmo ninkan horteeda ka muuqda, oo ah musharax xisbiga dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Barack Obama. Buugaag badan ayaa ilaa iyo hadda laga qoray madaxtinimada Trump, laakiin buugga ugu dambeeyay ee uu qoray la taliyihiisii hore ee ammaanka Johan Bolton ayaa soo jiitay indhaha dad badan. Marka la eego eedeymaha uu ku qoray buuggiisa cusub iyo xilka uu u hayay Trump. Maxay tahay sababta ay Hindiya u mamnuucday aaladda TikTok? Hindiya ayaa dalkeeda ka mamnuucday isticmaalka aaladda TikTok iyo barnaamij kale oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kuwaas oo ay sheegtay in ay khatar ku yihiin dalkeeda. Guud ahaan waxaa dalkaasi laga mamnuucay 59 barnaamij ama app, waxaana ka mid ah abka loo yaqaano WeChat. Arrinta ayaa waxay daba joogtaa xiisadda sii horinaysa ee u dhaxaysa labada dal, kuwaasi oo isku haya muran dhanka xuduudda. Labada dal ayaa ciidamo dheeraad ah geeyay xuduudda ay wadaagaan, gaar ahaan deegaanka loo yaqaano Ladakh. Haddii aan si xun u dhawaaqay karaan laqda, isku dhac dhex maray labada dhinac ayaa waxaa ku dhintay 20 askari oo Hindi ah. For most of the 20th century, India and China refused to recognize each other's claims on mountains and passes stretching 500 miles along the Himalayas. There have been battles and skirmishes numerous times, but in the past 4 decades, no lives were lost.